idinka baahanahay talo waxaan u istaagaya aniga haddaa xataa igula talisiin adi wanaya naag habar gidiraa tahe ninka jareerka maxaa kuu geey haddaa dhahdiin xataa ma aragti ma idinka yeelaya aniga ma idinka yeelaya habeenna ma idinka yeelay maalin idinkama yeelay sababtoo ahi ninka Jamaicanka waa guursatiin asoo xashiishad idin siiya ma ninka jareerka ka fiican yahay ya ninka Jamaicanka ay lacagta leh waa guursatiin ama xashiishada afkii fitada idinka gelinay ninka Talyaaniga waa guursatiin waxa la lahaa abgaalkii Talyaaniga waxa la lahaa walaalo waay ya Talyaaniga abgaalka intee is guursadeen walaalo laga dhigay maxaa jareerkii abgaalka walaalo looga dhigi waay jareerka habar giirta maxaa walaalo looga dhigi waay maxaa dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee anaga nala degan ee isku meel aan ku dhalanay ee noo shaqeynaayo ee maxaan ku dhahay ee suuqa kula taagan ee xoogoodii kugu tabarucay ee aan ku dilaynin ee aan qoriga wadanin ee aan xoogoodii ku xamaalanay reasonka anaga aan u faquuqan aan gabdhaheena ugu diideyna maxay taa gabadha Soomaaliyeed inay mar fiiri wiilka markuu ugu horeeyo oo ku dhahay aniga walaa waxa laga yaabaa wiilal badan oo waxa jira qurux badan oo jareeraan jiro anigu ngo jecelkayga waa qurux badan yahay ma fahantiin naag walba waxay jeceshahay ninkeedu inuu qurux badnaado macnaha marka wiil jareer oo qurux badan jiro wiilka jareerka qurux badan markuu sawirkiisa ku soo diro ku dhaabaa waa kana waxa leedahay alla jareer ma tiid jareer ma u ekid ninkii qabiilkiisa caynaysa jareer ma u ekid waa isla fiican tahay naadimu waa anta jareer waa qabiil ma aha shakhsi ma aha qabiil dhan oo meel degan waay jareer faanti ya ma aha shakhsi jareer ma ekid way u dhahay waa jaahilnimo faanaysa wiilka ilaahay saan asaga u suubiyay hooyadiisa ku dhashay asaga sooma dooran oo jareer yahay ee adiga ma soo dooranin which reason aa ugu caynaysa jareerata ya awdaysa jareer uma ekid bal arqaf jareera bombala jareera soo suubiyo Soomaali Maxamedi bombala jareere aniga u baahanahay ya bombala jareere soo suubiyo ilmahayga markaa ku caynaysin aabihi waa jareer ya aniga aabahay markaan kala xishoonayo aabe nin jareeraan wataa ma dhihi kari waxa laga yaabaa cawda aabahay lafkiina ku jiro idaawanoy aabe si fiican ii soo fiiri gabadhaada waa naag landheera afar lugood ay ku taagan tahay fahmaysa waaya ugu diidaysaa ninka jareerka aabe waxa laga yaabaa ninka abgaal iyo ninka majarteen iyo ninka shiiqaal iyo ninka xawaadle iyo ninka sacad inuu ka landheeraysan yahay landheernimadu waa dhinaca kale ma aha yaa ha iska fahan aabe kuma baahan inaan ku fahansiyo aabow sababta igu diidan tahay maxay tahay adiga waxa u baahan tahay kaliya aabe adiga waxa u baahan tahay bas inaan aniga farxo oo nolol fiican oo qurux badan ku noolaado ya gabadhaada inay faraxsan tahay muhiim ah gabadhaada inay nolol wanaagsan ku jirto nin jecel oo naa kala la arooseen waraa wiilasha jareer ku yaaca ma fahantiin sababta waxa waay wiilka jareerka naa kala ma ka fiirinayo ma fahantiin oo qaraabo kil ma galay adiga kugu dhankaga laano meel kale waa laga soo burinaa ma fahantiin marka ku yaaca waxa waaye wiilasha jareerka waa wiilal wanaagsan marka aabahay oo soo laabana aabe maxay igu diidantaa ani nin jareer inaan guursado what's your problem baba problemkaaga muxuu yahay halka aan fadhinaa qarniga 21 aan ku jirnaa jaahil ma nihine aabow ninka jareerka muxuu kaga duwan yahay ninka kale bas waxaan ku keenaa Jamaican oo dhahay odayga muxuu sheegay Soomaaliga ee caatada badan ya allora indheena waa inaan furno aqligeena waa inaan ka shaqaysiino waa in aan ogaano reasonka iyo sirta waxaan ka dambayso war waxaan ahay dad maskaxda looga xaareeyama dad waxaan ahay waxa ay rabaan shaki laga galiyo ma fahanti marka aniga ma aha maanta halka uma soo fadhiisan inaan reerka aniga aan u dhaxayo inaan caay waxaan u soo fadhiisanay xaqayga dhacsada aniga waa dulmana cunuga la cayn doono oo la caynayo anaa dhalay 9 biloodaan siday waa fooshay cunuga aan fooshay oo aan dhalay oo aan suubsanin mashiinka caloosha ku jiray oo cunuga marka uu kala badbadalayo oo sanka u suubinayo oo timaha u suubinayo ani ma ahay may ani ninkaan isku tagnay ilmaa dhaxdeena ka imaade ilaaha timaha u soo suubi sanka ilaaha u soo suubi waa ani igu jaaj gareynay adi yana ya dadka xuna dariski isku sheegay dadka xuna qaraabada isku way igu jaaj gareynaysa cunugan sankiisa iyo timihiisa ani maana soo suubsaday waa may allora
مسوب بكري سوماليا قربسار كان موجود العقل يسوسي مسوب سكري يعني يا ما عنده دا يقول هالكو قربسار سو سوبي مسوب بكري ساينس كلو برت قربسار ما برانين قربسار aan soo bikari la markaas qof bini aadan oo calooshooda lagu soo dhax sameeyo aniga dhan walac li galiyo oo hormoonkeyga is dhaxwaash aniga igu jaaj gareynaysa cunugeygiyan qarina miya aniga wallahi inaan qareyn oo billahi aan qareyn ilaahayna ma qarin tintana adigu ma aadan suubin waana ilmihiina banoonigan bara laacibiinta ku jira Faransiiska fiir kulligood jareer waay ya kulligood Afrika xoog leh waay saas idinka mujadi Soomaalida lacag waxay ku bixiyaan inay murqo yeeshaan faanti ya murqo yeeshaan ragaasna waxay leeyihiin murqo organic ay leeyihiin nimanka axmed surwaalka ka dhacay lugaha caatada qabiil majaarteena ahay habar gidira ahay dhahay ma ahan murqo waxay leeyihiin organic oo fresh you have to know that gabdhahan six bag raadinaysiin ragaan six bag natural ay leeyihiin ilaaha u suubiyo xoogiisa oo ku shaqaystaa faanti يا أسأل ديد في عني دينك كيناي فانتين ها thank you برا أنت أنا فاهم سوا هذا أمها سنتين أنت أنا فاهم سنين ديدك يا غنا عارف ما تكين ديدك يا غنا أنا وحبيك مقصيان لكن هدف كأني عن ليه وحيد هاي تاريخ لما أنت وحواي سدي لا تنكي بشي ديسمبر لو كوني سديني طبعا كواي فاهمسي وحاول تاجنا هاي inaan cawada aniga ya inaan cawada ma aragteen wixii ka dambeeyo aan u doodo dadka aad faquuqdaan ama jareer u bixiya ama jaan u bixiya ama dhibaan u bixiya ama u bixiya ciday doonto jaarsada xataa waa la yeesaa ma ogtii jaarsada in la yeeso jaarsada yestiin eelayda yestiin jareerta yestiin رحوين تا محمد رحوين ها رحوين قبيل لنواي إلايد سبيشل رحوين وحلاقة سياسة إلايد على سياسة لفت إلايد على يسا وحاي يستين دت كان له جبويها وحاي يستين جرها وحاي يستين عد والبو يرى يستين عد والبو يرى يستين فانتين أنا ما أنت وحاول بقى قبيلة يرى ولا يصورن الناس كنت كان on community له community أدون كلا سميستو أو وحول بقولين إن وحلا برتا إن هرا الله صعدا إن ما أنت جبر ويل دمبي جبر سوماليا ده إسجعل أجرير إن لك الجينين ها رجع هذا أمه سنتين عوض أنا ترى إذا كبا هنا هاي ما حيقول التلنيسي يا ويا لو ضدك ما أنت عندك ورارك إسلامي أنا اللي قد دولين أنا نخاف كلا الدلين أيام أنا وحنا وين أنا نيل الجبي أنت عم بالعدة إذا أنا إيش ندولين إيش خاف كلا سود دلين بل أنا ما حيقول للناس ميس كدافع هذا قفك إيش كدافع ده هاي وانها ساقرة قفك كسر ده هاي نتوها ساقر لأنه قرار الذين ما آخر كرياني صوص على ورك وحمس وقرصين بحاسداتين جعل حاسداتين ها عبد الرحمن جلالك هلوياعو لانه مرق اورغاني وليه واني wanaagsan oo shaqeysana xooggiis ku shaqeysana qori ma qaadanay shaxadna waxba kuma raadiyo jareerka ya yes fi fujreer soo qara fi fujreer wariyaad doofaarayo naaga xunxune wiilish cuqdada giliye dhahay jareerata aabahay kuma geey karne ana cawad aabahay fariin facebook aga diray ya aabe I love you baba waa ku jeclahay ixtiraamka yes tuwa u jeeda waa ku jeclaa ixtiraamka kuwa aabahay tahay laakiin adigu waxa jeceshahay gabadhaada inay faraxsanaato you have to know that baba naagaha saaxiibada aan hayne oo ani ilmahayga bari dhiidoon heblaayo niciime jareer guursatay ku soo fariista saas horo aa loo soconaa gadaal u socod ma jiro aniga naag nin ma ii noqonay ani adi ma nin ii noqonay ka igu jaaj gareenays ninkeyga marka ani igu jaaj gareenays adi heblaayo jareer guursatay heblaayo ilaahay guursatay ana kooso soo هذا أمها سنتين أنت 1 2 سو قرتي wax wan soo qalama ugu jeedo laano dadkeena waxay noqdeen way caafimaadeen fahmaysi dadkeena way caafimaadeen
aniga igu fikirtiin akhbaar fiican waa u celinayaa waxaan leeyahay dad badan oo waxaa jira Soomaaliyeed oo Facebook isticmaala social media oo dhalinyaro ah ya marka saas darteed waa u sheegayaa inay taageerteen oo aad macnaha positive ay tahay fahmaysiin marka intana waa soo fadhiisin doonaa hawlweelnin idin rag badanna waa maseeri doonaan abiqlayso ceeda maxay tiri waa milyan hunno hadal maaha himbirirsi arag maaha ya hunno hadal maaha waa inaan la dagaalanaa dhibaatada waa inaan la dagaalanaa dadka la caburinaayo waa inaan la dagaalanaa wax walba oo anaga dhibaato nafteena caqabad ku ah walaayaal ma wax ka xun ma jiro inaa wiil is jeclaataan oo aad caashaqdo oo aad macnaha jeclaatid inaa nolosha la sii wado oo aad kala cabsatid inaad ehelkaagii barto okay cabsatid ma xume maxaa ka cabsatay cabsatid ma xume maxaa ka cabsatay in ninkan oo ku kufsado ma ka cabsatay may ma waxaa ka cabsatay inuu ninkan bari markaa guursatid dhibaato ku geysan doono may maxaa ka cabsatay waxaa ka cabsatay wax uusan asagaba dambi ku lahayn war Soomaaliya aqligiina into aadi war ninkan inuu jareer noqdo asaga dambi kuma lahan asagana ma soo dooranin harti mid waa inaa ogaatiin maanta fariina idin diray mid waa inaa ogaatiin qofka Soomaaliga ee Soomaaliya jooga saddex shayba kama qaadi kartid saddex shayba xaq ugu malihid inaad ka qaadid cawada aniga ila saxiix arinkaas kow oo aad kala cabsatid inaad ehelkaagii barto okay cabsatid ma xume maxaa ka cabsatay cabsatid ma xume maxaa ka cabsatay in ninkan oo ku kufsado ma ka cabsatay may ma waxaa ka cabsatay inuu ninkan bari markaa guursatid dhibaato ku geysan doono may maxaa ka cabsatay waxaa ka cabsatay wax uusan asagaba dambi ku lahayn war Soomaaliya aqligiina into aadi war ninkan inuu jareer noqdo asaga dambi kuma lahan asagana ma soo dooranin harti mid waa inaa ogaatiin maanta fariina idin diray mid waa inaa ogaatiin qofka Soomaaliga ee Soomaaliya jooga saddex shayba kama qaadi kartid saddex shayba xaq ugu malihid inaad ka qaadid cawada aniga ila saxiix arinkaas kow Soomaalinimadiisa kama qaadi kartid inuu Soomaali yahay oo luqadda Soomaaliya ku dhashay oo geeska Afrika meel la dhahay ku dhashay yaa kantiinka Afrika la dhaho inuu waliba geeskeeda ku dhashay meel la dhaho Soomaaliya adiga kama qaadi kartid kow xaqna uma lihid waa kaasay qof soo qoro anaa ka bixi karo Soomaalinimada idhihi kara ha soo sheeg garbaha dabool ma dhahoyin garba saar ali fiiriya garba saar af Soomaaliga waa saxa garba saar ka madaxa lama saar madax saar waay kan madaxa la saara kan waa garba saar garbaha la saara war Soomaaliga aan noqono nimayo bilaasha carab nooga dhigteen carab manihiin anaga Soomaaliyaan nahay faan jareeraan nahay anaga dhan jareeraan nahay idagaysta marka Soomaalinimada kama saari kartid kow labo inuu bini aadan yahayne kama bedeli kartid inuu qofkaan yahay qof bini aadan oo nool oo san ku neefla ahne ma ka bedeli kartid saddex inuu yahay qof islaamane ma ka bedeli kartid oo innaa wajadnaa aabaana waxaan ka soo gaarnay aabayaasheen ma ka bedeli kartid marka aniga nin saddexdii waxyaabaha nolosha ugu muhiimsanaa soo buuxiyay inaan aniga la baqdo inaan ehelkayga horgeeyo intee ka keenteen bal ii sheega meesha ka keentay inaad tihiin wuxuush binaadanimadina ka tagay Soomaalinimo maxay ahayd xayawaankiina aanan gaarin ay idin sheegayay war wiilka ma dhibaan wuxuu kaga duwan yahay wiilka habar gidir ii sheega wiilka ma dhibaan wiilka jareer wuxuu kaga duwan yahay wiilka abgaal ii sheega wiilka ogaadeen wuxuu kaga duwan yahay wiilka jaarshi maldahay ii sheega aniga ii sheega wiilka xawaadle iyo wiilka duduble iyo wiilka maxaa la qabiilada tiro badan waxay ahaayeen iyo wiilka ma jaarteen waxa uu kaga duwan yahay wiilka eelay ii sheega
ma bini'aadanimo ka sarreeya waa may ma wuxuu ka sarreeyaa soomaalinimo kaga sarreeya waa may ma diinta islaamka uu kaga hooseeya oo qof islaana maaha ii sheega may okay lacagta waa wax la suubsan karo ilaaha bixiyo nin shalay faqiir ah maanta taajir noqon karo bini'aadanku maskaxda iyo aqliga oo ka tabariyaa aqliga oo ka tabariyaa hadduu ninkaasi noqdo nin maskaxdiisa tuujiyo waxaa laga yaabaa inuu milyuunaar noqdo aqli lacagta waa wax la suubin karo wax guryaha iyo baabuurta iyo mahantida waa material waa wax la heli karo waay marka aniga sababtii igu kalifays iyo gabadha Soomaaliyeed sababtii ku kalifays inay sham ku dareemto inay aabaheed horgeysa ninka ay calmatay war sirta ku jirta ii sheega bal Allah ku naxariisto waa dhimatay tabeecow waxay hortaagan waa sawirkii tabeec waa nin walaalkeena ee Soomaaliyeed ee fanaan qaran oo dhintay inuu Ilaahay u naxariisto aamin soo qora abaalkiisa ma gudi karno laana wuxuu noogu raaxay codkiisi macaana waxaa la heysaysaa umaleena Maryam Mursal ayadana way daawanaysaa waxaa laga yaabaa inay aad waxyaabahaas oo dhan aga hadashay ayadana waa la dulmiyay anigana waa la dulmiyay ya laana bini'aadanku jaceelkiisa ka tabariyaa ninka aad jeclaatay oo calmatay haddii aad dadkaagii bari karin dhaawac iyo xanuunka weyn oo bini'aadan la dhilgareeya oo ka xun ma jiro nin waxa guursanaysaa eelaay waa lagu qabsanaa ninkeeda eelaay waa lagu leeyahay taa ka jirtiin okay eelaay maxaa ku haysatiin ya eelaay maxaa ku haysatiin jareerka waa san weeyay eelaay maxaa ku haysatiin ya eelaay okay waa tugsadaan okay eelaay oo dhan ma tugsato eelaay lacag laha jirto geel leh oo xobeero leh oo dhul leh oo magaalada Muqdisho degan oo ka lacag badan jirto shakhsiyaad masaakiin oo noloshii la dhilgareey way haddii rabaan iska xanuunsan oo aysa qoodiid noqday inay tugsadaan tugsiga ceeb maaha jarmal tugsadaa jiro jidka jiif oo homeless American homeless ah jiro ruush homeless ah jiro ساجعشين عرب سوريان هذا سعودي هم لسه هجروا أو نلاش أنتوا فهمي واي دنتي أي بدينا ونوراده وحو عنقف كلا ويدي سنة يقصب بني آدم واي سنكون نفلع مارك جنسي وحما يقفك وحو صفيع الكوسوبنا جنسي قاودش محا وقد يجي واحد سكحرن ورأخلقي ماي واي مقلي واي أنا واحد لا نو هبينا هدلا مالنا هدلا أخلقي اللي واحد كم غنى الدين شيء warficilka aniga aan sameeyay cawada iyo sinjigeyga maxaa iska galay aniga naag habar gidir afar lugan ku taaganay habar gidir maxaa ka galay ficilkeyga ani maxaa ka galay waa ka dhashay ani ma soo doortay ani ma dhahay habar gidir aan ilaahay oo habar gidir iga dhigmaan dhahay ani ma dhiyani habar gidir waxay soo bisanaa ani dambi kuma lihino nin Maryaano lacagtiisa qaada ani ma dhihi kartiin wixii habar gidir ilaahay maxay il fakiik fiir habar gidirtu naftirkeeda waa la abiyus waxa la yiri il fakiik waxa la yiri birjeex waxa la yiri waxaa lagu tilmaamay magacyo aysan habar gidir oo dhan qaadi karin habar gidir oo dhan tuug maaha faantiin marka dad waxa ku jira wadaada dad waxa ku jira shacab oo maato masaakiina dad waxa ku jira waa qoom dhan oo meel deganad shakhsiyaad aad dush ka gelinaysiin marka waxa idin rajaynayaa caafimaad waqti badan aan hadlay waxaan idinka mahad celinayaa inta ay dhageysateen inta samaha jecel mar walba waxa soo geli doona waqti yar oo kooban waxaan kaga hadli doonaa arrimahan oo kale aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.